war-saxaafadeed ka soo baxay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Saleebaan Yuusuf Cali Koore ahna afhayeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo nuqul ka mid soo gaadhay xafiiska warqabadka Gobonimo TV ayaa waxa uu dhignaa sidan war-saxaafadeed waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa war-saxaafadeed hore uga baxay wasaaradda warfaafinta oo aanu dib u sixid ku sameynay meelo ka mid ah hantidii ay dib ula wareegtay xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waana sidan hoos ku cad haamaha kaydka shidaalka ee Berbera qaybta dhuumaha shidaalka ka soo nuugta maraakiibta kuna shubta kaydka haamaha shidaalka qalabka hubinta tayada shidaalka taariikooyinka kala duwan ee dalka sida kuwa dawladda shacabka iyo kuwa qaramada midoobay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga liisamada baabuurta shicibka iyo kuwa hay'adaha dhugmantiyada wadamarista ee lagu dhajiyo muraayadaha hore ee baabuurta tigidhada cashuuraha iyo cusboonaysiinta liisamada kala duwan kirooyinka gaadiidka ku nasanaya barxadda hore madaarka baarkinka hoteelka Hargeysa Kilaab oo ka mid ah goobaha taariikhiga ee dalka madaarka caalamiga ah ee Berbera oo hore loo bixiyay heshiis saldhig military oo dhex maray 2017 Jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Imaaraadka Carabta waxa uu sax ku yahay warkaasi in imika laga dhigay mid diyaaradaha shicibka ahi ay sidoodii hore u isticmaalaan iyada oo aan waxba laga bedelin heshiiskii hore u dhex maray labada dal la wareegida dhul ballaaran ee dhawaan la deeray oo laga dhisayo xarun u qalanta madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland xaruntii khariiriyada Hargeysa oo hadda xukuumaddu ka wado dhismo madxaf qaran inta waxa dheer diiwaangelin iyo tirakoob lagu sameeyay dhammaan hantida maguurtada ee qaranku leeyahay ee ku yaala gobolada dalka waxaana laga howlgalay kowdii bishii September 2018 injineero ka tirsan wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta kuwaasi hawsha diiwaangelinta muddo 2 bilood ah ugu maqnaa gobolada dalka si ay indhahooda ugu soo arkaan gabagabadii waxay soo diiwaangeliyeen oo ay soo tirakoobeen hantida maguurtada ee qaranku leeyahay oo dhan 4286 oo isugu jira seerayaal garoomada ciyaaraha dhammaan ceelal MCHO dhismayaal shicibka ku jiro iyo sidoo kale dhammaan xarumaha dawladda dhexe ee dalka dhisa dib u sixid kooban oo ku saabsan goobaha iyo adeegyada xukuumaddu dib u la soo noqotay alaama hadli waxa ku saxeexan Saleebaan Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland ahna afhayeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland وحمزة خضر محمد حمزة حداري تلفزيون عالمي Gobonimo Hargeysa